xubno ka socda wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya oo booqasho ku jooga magaalada Oslo ee dalka Norway ayaa habeenkii xalay ahaa kulamo isugu jira casho sharaf iyo xog ururin la qaatay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda. Kulankani oo si sare ay u soo agaasimeen ururka dhalinyarada dalka Norway ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoon-yahano, siyaasiyiin iyo dhalinyaro, taasoo diiradda lagu saaray sidii wasaaradda qorsheynta ay talooyin wax ku ool ah u siin lahaayeen qurbo-joogta Soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa. Xogayaha joogtada ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya, Cabduqaadir Axmed Warsame, ayaa ka warbixiyey qorshaha iyo istiraatiijiyadda u degsan wasaaraddiisa, taasoo ku wajahan qurbo-joogta iyo waxqabadka wasaaradda. aniga Cabduqaadir baa la yiraahdaa. barnaamijku waa gaaban waqtigiina horey buu nooga dhumay, marka mahadcelintii runtii asagaan la qabaa aad iyo aad baan saad u jeedaan. dadkan waa dadka ka socda wasaaradda qorsheynta iyo walaalkeen Cabdinaasir asagana barnaamijkan waa wasaaradda maaliyadda ka socda. magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdinaasir Cali Axmed, wasaaradda maaliyadda ka tirsanahay, saraakiisha sare ee finance-ga ka tirsanahay. last 6 years-na waxaan ka shaqeynay wasaaradda maaliyadda. مشاريعda World Bank ka bixiyo financing-gooda ninka madaxda ka aanahay. group of financial consultants la yiraahdo madax u siyahay. wajiye kala gedisan oo dalkeena kulligeena bedela. hal degmana kama imaan, hal gobol kama imaan, inaad naga dareemi kartaan oo malaynaa. waxaan rabaa inaan idinkaga mahadceliyo inaad waqtigiina soo hortaan maadeen. waxaan noo cad runtii dadkii aan raadinaynay oon rabnay inay noo imaadeen. intii gacanta naga siisay intaan oo miskaxdii iyo tayadii dadka Soomaaliyeed oo magaaladan joogay inay noo keenaan runtii aad baan ugu mahadcelinayaa. intaas haddaan ka gudbo ujeedka aan kugu yeernay waxay anaga shaqo kala amnimid maadaama aan halkaan nimid wasiirkaan isla hadlay. salaanka guud horta waa idinkaga wadaa wasiirka wasaaradda qorsheynta. marka labaad waxaan qorsheynaynay in qorshahan qaranka maadaama ay Soomaali leedahay 5 sano uu socon doono haddaan ilaahay ma dhihin hirgelintiisa. marka dalka gudihiisa wada tashada laga soo sameeyay dibaddana maadaama ay dad xoog leh oo Soomaali ah oo miskax iyo maal iyo muruq wala maqan ay jiraan in ayagana loo soo gudbiyo. Norway waa dalkii ugu horreeyay oo qorshuhu soo gaaray oo wada tashi u imaaday. waxaa jiray waqtiyo badan oo na cariiriyay, laakiinse halkaan fursad bayna wadaan ku imaan. ujeedku marka waxaa weeye qorshihii wada tashiyo badan baa la geliyay, wareegyo fara badan buu soo maray, wuxuu ka soo baxay ahmiyadaha ka soo baxay. in ahmiyadahaasna ay idiin soo bandhigno. hadda maanta waxaa fadhiistay golihii wasiirada way endorse gareeyeen, waa preliminary, laakiinse wuxuu noqon doonaa qorshe sii jira oo si toos ah loo update gareeyo hadda wax loogu daro oo wixii ahmiyadu sax ah loogu daro. sidaas awgeed goor dambe idinma soo gaaray. waxaan rabnaa marka ujeedka sidaas weeye. meeshaan oo nagu yar waa isla 10 ahmiyadood oo socda. dadka marka dib baa loogu celiyay, wareegyadii baa socday. 10kaas ahmiyadood oo ballaaran oo baaxad leh maadaama aanan haysan xad dhaqaale iyo human resource iyo finance inta ma haysan. waxaan inteebad awoodda saaraysan oo wax laga qabto. waxay ku soo hareen nabadgelyadii oo kow ah tiirka koowaad, kobcinta dhaqaalaha iyo governance and politics wax la yiraahdo inclusive politics, siyaasad xasiloon oo dadka Soomaaliyeed isku raacsan yihiin oo maaragtay stable. intii uu kulanka socday, qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay ayaa su'aalo kala duwan hordhigay xubnihii ka socday wasaaradda qorsheynta qaranka, iyagoona helay jawaabo wax ku ool ah. waxaan ka faraxsanahay inaad jaaliyadda u timaadaan oo aan ugu sharaftaan inaad ugu soo booqataan halkaan caawa. waxaan u mahadcelinayaa ururka dhalinyarada oo anaan hawliyaha u yahay oo arrinkan mas'uuliyad iska saaray isuna keenay. soo dhawaada waa soo dhawaadana boqolkiiba. anigu su'aal idin weydiin mayo, laakiin comment yar baan ka dhiibanayaa programkii aad u wanaagsanaa aad soo jeedisay. wuxuu ahaa qorshe very ambitious. muqdisho qaab dhismeedka waddanka uu yahay aad u fulxin yahay. marka kor aadidna waa dareemi kartaa, marka gudaha ku jirtidna waa dareemi kartaa. su'aasheedii waddanka wax muxuu soo saaraa waddankeena, muxuu wax soo saar u leeyahay waddankeena oo
la yaqaano aad taqaaniin السلام عليكم aad iyo aad u mahadsantihiin wafdiga Oslo soo gaaray kusoo dhawaada magaalada Oslo su'aal ka hor aad iyo aad ugu faraxsanahay statistics maanta soo dhigteen ilaa waxa ognahay dalka realistically dal loo hadlo inay 30 iyo xogaas oo dagaal ku jirtay oo wax kasta laga bilaabo hoos laga soo dhiso marka wadankan waa ogyahay sida uu kala qaybsan tahay soo maxalla aad iyo aad ugu farxay realistic ahaan محل statistics soo saarteen aweydiin lahaa waxyarna maxalla waa ka hadashay IMF oo dhahday maxalla deemihii Soomaaliya waa laga cafina sidee looga cafina haddii dawladda hadda sida ognahay state yaala jiro oo budget yaashooda kala duwan waa ogyahay lacag ogtaa jiro dawladda ay bixiso daraato lacag ay basheenay maxalla gobolada وقلاتي لكن سؤاشة أويدينه لأن دولتي سوماليا وحكمت سوماليا ناجرته فودا ناجرته جبلة ناجرته قدام مقدشو كليات لأن حدا حقوقه هذاك سؤاشة A و B one A محلها عنشور تلقى حاجة لا قضى سيده بدن تحكم على الدماغ وبدن مقدشو كتيم هذا بينا سيده محلها أي لأن شروطها الوحرة دولتها هم لا IMF كحرتي شروطها سيدات دولتها محلها ايوه محلها وفليني كرتا سؤال شيء او تنبيه كحرنا ويدين لها وحويان محلها رياليستيك هان وقتي هان how long وقادن كرا مالديه كرا IMF محلها دولتها شروطها كسو حتى اني unrealistic تاعي الدير ساستا أنا محل دولة مكلال لأن ممكن IMF إنه محلها شروطها يكون حرن وقتها حد اللي جوا لفولين كين مثلا ما صنعي مرة هراء مرتيدا يقول ديك الصوب وقدي أدب وما سنتين سؤال وهذا أنا كمان تيرو دق نقول بس يحرب سؤالي يعني إسكاكوما ولا جاي كمان تيجي كسر حبان horta markood waxaan umaleynaa wasaaradda waxaa dhihi jiray wayna walaal ma garanayo idinka kulena idin jawaab doonay wasaaradda qorsheynta iskaashiga la dhihi jiray caalamiga ah magaceeda hore ma aqaan in hadda wasaaradda arrimaha dibadda loo wareejiyay iskaashiga waxyaabaha ugu badan oo idinku dhaliilan waxaa kamid ahaan jirtay iskaashi baad ka shaqayn jirteen wasaaradda se u dhan tahay wasiir baa loo dhiibayaa wasiirka qorsheyntii iskaashi marka la isugu daro inta badan waxaa arkaysaa isagoo boorsidiisa wato oo sida wasiirka arrimaha dibadda oo iskaashi ka shaqaynaya oo waxyaabo badan saxiixaya marka aniga noocan ma ku farxay markii aan arkay horta bal marka ugu horeyso oo laga hadlaayaba in qorshe qaran la sameeyay oo qoran nooc doona ma ahaado level ku rabo baa joogo laakiin hadii waxba la qoro wasaaradda mashquul ku tahay dhinaca in kuwa hambalyeynaa ana guud ahaan waxaan rajeynayaa tilaabo hore loo qaaday inaan guud ahaan fahamka guud ee conceptiga aad naga siiseen hadda waqtigana dabcan aad ku baacsanayay presentation kana xagga technique kuma caawinin anagana waa ka yara fogeyn marka ma rabo inaan xukun saaro laakiin mabaadi u badnaa waxyaaba guud u badna nagala hadashay waxdee oo hadda daqiiqa oo maalaha ku darraba oo aad sheegteen ma jiro sidaan ognahay qorshe caalami ah qorshe heer qaran ah marka la diijinayo oo dalka inta badan waxaa xoog la saara xataa even ururada ama hay-adaha local NGOs-ka kulli haddii ba qorshe la diijinayo iska dhaaf heer qaran adduunya waaba kasii sarreeyaay waxaa loo qeybiyaa un haddee waxa la yidhahdo long term iyo short term meesha Norway xataa aadan uga isticmaalnayo waxaa waaye dee qorshe la diijinayo Poland City iyo Code City dhaan sooma marka dawladaha marka la diijinayo 5 iyo 10 baa ugu yar 10 baa ugu weyn shantaas marka waxaa la yidhahdaa wixii fuli waayo alternative-ka loo guuraayo wuxuu noqon doonaa shanta kale ku xigto ama 10 sano kale ku xigo marka qorshahan ilaa intee buu yahay aad maalin xoog u saarin laakiin dee dhinac waa idin cudur daarayna dawladda Soomaaliya dhan ayaa duruufeeda iska adag hadda ceyntaa bilaabay wasaaradda markii ugu dambeysay wax qorshaba in laga hadlo dhinacna waa ka siyaasadaysan tahay wixii waa iska hor imaanayaan hadda adinku waxyaaba aad xusto waxaa kamid ah amniga laftiisaaba hadda isku develation maba loo yaqaano waa mugtahay hadda yani waana afkafateen mar raba inaan siyaasadda idinla galo dawladdii hore maalan waxyaabaha hadda xoogga saaraysa waxaa kamid ah amniga marka laga hadlayo al-shabaab hadda waxaa leeyahay al-shabaab waxay noqotay qodobka shanaad ما أهم كوك مجرته لا ما نحتاج مجرته مركز أمني اللي قال له واعي كي يعني من قرشة أنتوا كسوق لها واحد وعد ما أهم مثل واحد وجود وكجراي أصلا حس كانوا قنايا شمبري وهيسا
marka raalli ahaan su'aalihii qaranka kaliya tan kale waxaan isleeyahay haddii qorshahan la soo gaabinayo ku dheeraaday Abdullahi Allah waqtiga waan bacsanaya marka waxaan rabaa guud ahaan qorshahan ilaa intee uu kala sabaaraysiis laftiisa يعني وحي wax publish oo aan akhrin karo in la wadaag kana afkaar hadii dad experts oo Soomaali oo barnaamijkan culumta ay jiraan fursad ma tahay qadda waa mahadsan Dr. Azari waa mahadsan marka haddana waxaan sameynaynaa inaan jawaabaha u gudubno kadib markaan jawaabaha u gudubno waxaan noogu xigi doono Mr. Ali baan noogu xigi doono oo qaybta fanka oo ayadana aan meesha ka maqnaan marka haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Abdul su'aalaha sida u kala qaybsanaysaan waa garanaysaan waa qof walba su'aasha relevant ku oo qaybtiisa ku aadan waa wada ku aadin kartaa aad baa mahadsantihiin su'aalaha iyo comments kala tigaaysteen oo kala gedsanaa soo jeediyay aan mahadcelinaynaa Dr. Geelle waa mahadsan tahay waa kugu raacsanahay runtii muhiimadda ay leedahay statistikada waxaana ka jira dhibaato aad u weyn Soomaaliya maanta xogteeda adduunkana isticmaalka mabaadi'da ka sokow markii laga isticmaalo ay ka gasho haddana adiga wixii aad lahayd oo macluumaadkaaga ah oo xogtaada ah haddaysan gacan kugu jirin dhibaato kale weyn dhaba aad qaadi kartidna ma garan kartid dhib weyn baa ka jira waana dhib sii socon doona halkaan markaan joogana qaylinaya qabaa marka arrinka statistikada iyo xogta dhibaato weyn baa ka jirta ama hadda statistics wax loo marahayo ama monitor and evaluation iyo research wixii ka soo baxa noqdeen waa arrin dhibkeeda uu garowsaday qorshahan qaranka runtii laguna qoraayo horena dhib uga taagnaa haddana dhibkii waa taagan yahay hadda marka waxaan taaganahay oon isla garanay waddanka waxaa ka shaqeeya hay'ado fara badan iyo dowlado fara badan waxaan hadda gaarnay go'aan ah xogta la qaadan karo oo Soomaaliya waa mid ay dowladdu soo saartay ama waa mid ay dowladdu ay ansixisay oo ogolaatay intaas wixii ka soo haray waa badala ma ka jiraan hadda halkaasaan taaganahay tilaabooyin kale oo fiican aan qaadano waa rajayna insha Allah statisticada dadkeena ka shaqeynaya oo khubarada runtii oo population and demographics kala Saciid uu asagu fiilkaas ku taxasusay Zahir oo economy waa markii ugu horeysay xubno ka socda wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya ay kulamo noocan ah la yeeshaan jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Norway isla markaana ay sheegaan qorshe howleedka wasaaradda in ay qayb ka noqon doonaan ra'yi aruurinta qurba joogta Salaah Xuseen Maxamuud Daacad Goobjoog TV Oslo Norway